السلام عليكم ابن بطوطة سقالي لبعتن سنة يقوليك كم مقنع ليهاي يا إن أوغيريودي وعن كهل دونا نتيجة كتلا لنايسو هدي هذي waxa sayaa dhacay noocaas ma noqon doona wuxuu noqon doonaa in aan tooshka ku ifino dhacdooyinka muuqaalka haddaan ku bilowno qodobka ugu assalaamu calaykum aad baa u mahadsantahay saaxiib Mr. Drisleh waan dhawahay aad baa u mahadsantahay okay kulay dadka badankoodu waxay ku yaqaanaan ogaansho markaa bal yaa tahay sukaaya sheeg aad ayaa u mahadsantahay mar labaad akhyaarta kuwa ku xiran ogaansho iyo kuwa aan ku xirnaynba oo akhyaarta kanaalkaada ku xiran waan salaamaya mar koobaad magacaygu waa Umar Maxamed Inshaar inta badan waxaan ahay xitaa dadka ku xiran kanaalka way weydiiyaan magacaada ma sheegtid si toos ah ayaan u galaa barnaamijka oo kulanti waxaan wanaagsan saaxiibayaal meel walba adduunka ka joogtaan kusoo dhawaada mar labaad ee barnaamijkani taariikhda oo alaabad ka daawtaan channelkeena asxinta wararka sidoo kale oo yinda diyaaniga maxamed bulshaawiya daawada barnaamijkeena taariikhda oo aynu ku soo qaadan dadka caanka ka social media iyo kuwada ugu saameynta badan la social media daawada maanta barnaamijkeena waxaan ku taxaqaadi doonaa ninka loo yaqaan ogaansho ama daawada magaciisa saddexan la yiraahdo Umar Ishaar daawada wiilkani ayaa ah wiil alaaba soo galiya aalada YouTube codkiisa iyo sidoo kale muuqaalo ku dul qabtay wiilkan ayaa daawada waxa ku soo biiray saxmada social media ama YouTube waxa uu bilaabay sanadii 2017 bishii Abriil 29keedii oo wiilkani jooga daawadayaal Saudi Arabia ayaa daawada waxa uu YouTube ku soo biiray sanadan ku soo sheegay daawada wiilkani ayaa waxa uu ku dhashay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho isagoo daawada u hayaamay sanadii 2014 dhanka iyo Sacuudiga oo daawada ka bartay jaamacadda haddaba daawada intaan taariikhdiisa dhameystiran ku soo gudbin waxaan si naxariis leh kaga codsanaynaa inaad channelka subscribe saarto sidoo kalena aad gambalka furato si ay ku soo gaaraan muuqaalada aad ku xiisaha badan alaaba bartay soo galino daawada waxaan kula ka codsanaynaa inaad videoga like saarto like macnaheedu waxay tahay inaan muuqaalka ka heshay sidoo kale anaga noo dardar iyo dhiirigelin daawadayaal waxaan nagu dhiirigelinaysaa inaan alaaba soo galino muuqaal noocan oo kale ah daawada wiilka lagu magacaabo Umar Ishaar ama si ogaansho sidaad u garan ogtihiinba ay daawada rabadaan tidhaweyto wax wareys la yeeshay Drisleh Cabdi oo la yeelanayay YouTuber badan wareysiyo isagoo daawada bartiisa Instagram ka soo qabanaya call balse daawada wiilkan ayaa ka cudur daartay in la arko sawirkiisa daawada wiilkani ayaa waxa uu sheegay daawada inuu joogo Saudi Arabia sidaan anigu ku soo sheegay daawada sidoo kale waxa uu sheegay inuu codkiisa iyo muuqaalkiisu ay kala caansan yihiin oo daawada codkiisa ay yaqaanaan qof walba adduunka dacliisa jooga daawada wiilkan ay ku xiran yihiin boqolaalka kun ee milyan dadka Soomaalina u badan ayaa daawada waxa uu sheegay inuu sawirkiisa doonayn in la arko balse daawada sababtaasi ay isaga khaas u tahay daawada wiilkani ayaa waxa uu noqday wiil runtii ku dayasho mudan isla markaasina dadka Soomaaliyeed hadal hayn u baahsan ku yeesha iyo sidoo kale daawada ay isku dayaan dadka Soomaaliyeed badanaa inay sawiradiisa raadiyaan haddaba wiilkani ayaa waxa uu dhashay sanadii 1994 isagoo ku dhashay magaalada Muqdisho gaar ahaan daawadayaal degmada Hodan daawada wiilkani ayaa dugsigiisa oo saddex ku soo qaatay isla magaalada Muqdisho kadibna daawada sanadii 2014 waxa uu hayaamay dhanka iyo Saudi Arabia oo isla waqti xaadirkan uu ku nool yahay daawada isagoo Saudi Arabia ku nool ayaa waxa uu ka bilaabay bartaasi aalada YouTube sanadii 2017 29 bishii Abriil ee sanadii 2017 daawada wiilkani ayaa waqti xaadirkaas waxa uu ahaa mid aan bulshada saas ku xirnayn balse daawada sanad ka bacdi waxa uu noqday wiil wada yaqaan isla markaasina bulshooyinka Soomaaliyeed ay aad ugu xiran yihiin misna daawada soo galiya muuqaalo aad wax looga faa'iidi karo daawada dadka Soomaaliyeed ayaa waxay aalaba ku mashquulsan yihiin raadinta sawirka wiilkani oo daawada aad u jecel yihiin daawada codkiisa ayaa waxa uu noqday mid aad u wanaagsan isla markaasina ay ka helaan bulshooyinka Soomaaliyeed iyo sidoo kale daawada wiilkani ayaa waxa uu noqday mid soo gudbiya muuqaalo aad u xiiso badan isla markaasina daawada ay bulshooyinka Soomaaliyeed aad u xiiseyso daawada way jiraan YouTuber noocan oo kale ah balse daawada wiilkani ayaa waxa uu noqday wiilka lagu raadiska badan yahay aragtidiisa oo daawada commentigiisa aad u fiirsatid waxa ay leeyihiin bulshooyinka Soomaaliyeed war walaalow sawirkaaga madna soo tusti ama se walaalow mar qura soo fariiso daawada wiilkani ayaa isaguna waxa uu ka cudur daaranayaa in la arko sawirkiisa balse daawada wiilkani ayaa waxa uu noqday wiil ka hadla xaalad kasta adduunka ka taagan iyo sidoo kale dhacdooyinkeena dhaafay daawada ee aan bulshooyinka Soomaaliyeed ogeyn iyo sidoo kale bulshada kale ku xiranba daawada wiilkan ayaa waxa uu yahay mid alaaba daraasada sameeyay isla markaasina ka hadla wax aan bulshada ogeyn isla markaasina xaqiiqada ku saleysan daawada wiilkani Umar Ishaar ama saad u garan ogtihiin ogaansho ayaa daawadayaal
waxa uu noqday wiilkii ugu horreeyay Soomaali ay jeclaato in wejigiisa aragtay isla markaasina isaguna aan daawadayaal social media ka jeclayn sawirkiisa balse daawadayaal codkiisa uu ka caansan yahay. daawadayaal Cumar Ishaar ama Ogaansho ayaa inta badan waxa uu jecel yahay inuu cod duubo isla markaasina uu dadka Soomaaliyeed la wadaago muuqaalo iyo waliba barnaamijyo aan ogeyn iyo dhacdooyin sidoo kale aan bulshada Soomaaliyeed war iyo wacaaltoona ka hayn. balse daawadayaal ma jecla wiilkani inuu muuqaalo iska soo duubo ama soo sawir badan soo galo isla markaasina uu ku baahiyo social media. daawadayaal Cumar Ishaar ama Ogaansho sida u taqaanaa ma daawadayaal waa wiil aad u akhlaaq badan isla markaasina daawadayaal sheekha oo daawadayaal diinta islaamka ku adag daawadayaal ku adag markaan ku leeyahay waa wiil diinta islaamka wax ka yaqaan daawadayaal aan kuna xadgudbin daawadayaal waayo wada aragteen muuqaaladiisa daawadayaal waxa uu soo qataa alaaba muuqaalo asturan oo aad iyo aad u wanaagsan daawadayaal bulshadana indhahooda u fiican daawadayaal waxaan rajaynayaa daawadayaal in taariikhdiisa wax badan ka ogaatay daawadayaal waayo daawadayaal haddii aan ku soo tiriyo waxyaalaha badan ee aad ogeyn aan ku sheegay daawadayaal inuu wiilkani uu sheekh yahay daawadayaal oo aanay isku wacnayn daawadayaal dhinaca muuqaal duubista iyo waliba sidoo kale dhinaca sawirgelistaba daawadayaal wiilkani ay ku sheegay taariikhdiisa iyo xilliga uu dhashay daawadayaal iyo sidoo kale waqti xaadirkan halka uu ku sugan yahay iyo waqtiga uu tagay daawadayaal dalka uu imika joogo daawadayaal intaas oo dhan waxaan rajaynayaa inaad iga fahamtay daawadayaal iyo sidoo kale magaciisa aad ugu mahadsantahay daawashada fiidiyoga daawanaysid fadlan daawade waxaanu ka codsanaynaa muuqaalka si share gareyso si uu gaadho dad aad u tir badan oo daawadayaal ay ogaadaan taariikhdiisa sidoo kale meesha uu ku nool yahay waqti xaadirkani aad ugu mahadsantahay daawashada fiidiyoga daawanaysid.